بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد kusoo dhawaada walaalayaal channelkeeni mudan xuseen awal waxa aad nagala soo jirteen weeyaan fadlan waxaan iga rajaynayaa inaad like iyo share iyo subscribe kan la wadaagtaan asxaabihiin maanta waxaan dhiganaynaa waa conversation ama wada sheekaysi weeyaan waxaan dhiganayno waa Axmed iyo Xaawo oo wada hadlaya ayaan dhiganaynaa maanta darsigeena ayuu ku saabsan yahay waa darsi wada sheekaysi ah laba qof oo wada hadlaya marka hore Axmed ayaa hadlaya intaan macnaynin kadib horta waan akhrineynaa kadibna waan sharxaynaa casharkaas bismillaahir rahmaanir rahiim Ahmed hi how is it going Ahmed hi Hawa how is it going Hawa fine thanks and you Ahmed just fine where are you off to Ahmed just fine where are you off to Hawa to the library because I have an exam next week. Ahmed, well, see you late. Good luck. Hawa, thank you. See you late too. aan soo laaban hadda sharaxaadii Axmed iyo Xaawa waxay ka dhigan tahay laba qof oo is sii garanayay ayay ka dhigan tahay waayo marka labada qof isbaranayaan conversationku si ka duwan ayuu dhacaa Axmed ayaa Xaawo la kulmay wuxuu leeyahay hi Xaawa Xaaway nabad Xaaway nabad how is it going bal ii waran how is it going Xaawa iska waran eeg waxaad naqaanay how are you inaan iraahno ayaa naqaanay laakiin how are you hadda qof ka tiraahdo iyo how is it going waa isku mid labadaba isku mid weeyaan marka how are you Xaawa iska waran iyo how is it going Xaawa sidee tahay labadaasba waa sax marka sida oranay how is it going Xaawa ii waran Xaawa waxay tiri fine waan fiicanahay yani aad waan wanaagsanahay thanks mahadsanid and you adiguna iska waran adiguna bay tiri marka and you how is it going intay odhan lahayd way soo gaabisay oo waxay tiri and you adiguna Ahmed just fine waan fiicanahay hadda where are you off to where are you going haddaad tiraahdo iyo haddaad tiraahdo where are you off to waa isku mid where are you going xageed tegaysaa iyo where are you off to xageed tegaysaa Soomaali waxay noqonaysaa xageed u socotaa iyo xageed tegaysaa labada macnana meel un ba isugu imanayaan marka where are you off to xageed u socotaa ama xageed tegaysaa Xaawa waxay tiri to the library halkii ka oran lahayd I'm going to the library waxaan tegayaa library-ga ama si maktabada waxay tiri to the library xagga iyo maktabada ayaan u socdaa because I have exam next week toddobaadka soo socda waxaan leeyahay imtixaan I have exam next week waxaan leeyahay imtixaan ayaan leeyahay aan maraya toddobaadka soo socda Ahmed well waa hagaag buuri see you late is arag dambe good luck nasiib wanaagsan see you late Ahmed wuxuu yiri well waa hagaag see you late is arag dambe good luck nasiib wanaagsan nasiib wacan ayaan ku rajaynayaa ayuu yiri Xaawa waxay tiri thanks mahadsanid see you late too sidoo kale adna waxaan ku rajaynayaa nasiib wanaagsan ayaan ku rajaynayaa marka haddaan ku celino Ahmed hi how is it going Xaawa iska waran Ahmed hi nabad buu yiri Xaaway nabad how is it going iska waran Xaawa waxay tiri fine waan fiicanahay thanks mahadsanid and you adiguna Ahmed wuxuu yiri just fine waan fiicanahay where are you off to xageed tegaysaa where are you off to xagee ku socotaa Xaawa waxay tiri Xaawa waxay leedahay to the library waxaan tegayaa maktabada because I have exam next week toddobaadka soo socda ayaan imtixaan leeyahay sidaa daraadeed imtixaanka ayay u jeedaa inay iska sii akhrinayso oo iska muraajacaynayso revision waxaynayso Ahmed wuxuu yiri well waa hagaag see you late sarag dambe wuxuu shakada ugu sii badin waayay waxay maraysaa imtixaan maadaama ay imtixaan marayso hadal badan qofku ma sii haleeli karo uu booqsan yahay ay ka dhigan tahay Ahmed wuxuu yiri well see you late sarag dambe good luck nasiib wacan ayaan ku rajaynayaa good luck nasiib wacan ayuu ka yiri yani nasiibkaagu ha wacanaado ku guuleyso imtixaanka aad maraysid Xaawa maxay tiri thanks mahadsanid see you late sidoo kale see you late sidoo kale is arag dambe ay tiri thanks mahadsanid see you late sidoo kale
is arag dambe markaa walaalayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa maanta conversationkeena yaree gaaban ee wada sheekaysiga axmed iyo xaawo dhex maray waxaan rajaynayaa inaad share garaysaan inaad maxaan ku rahday channelka subscribe ka saartaan ayaan rajaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu